السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديش دا قدرنتي قيمها نجم مدن وكلنتي وعنو ونكسن يندلنا هاي magacaygu waa sagal guure halkanna waa Soomaali News TV galabta waxaan u soo diyaar garownay sidaan horeba idinku sheegnay ama aan horeba u baahinay barnaamijkii ahaa kaftanka Soomaali News inaanu magaalada Hargeysa mikrofoonka la dhex qaadno isla markaasna su'aal ku saabsan isla kaftankii ayaynu ku dhex jirnaaye aanu weydiino bulshada ku nool magaalada Hargeysa daawasho wanaagsan ayaanu idin leenahay anaguna barnaamijka waxa idin la socodsiinaysa anigoo sagal guura adigoo magacaaga ku bilaabaya marka uu qofka jacaylka ku dhaco halkee ayaa xanuunta bismillaah magacaygu waa Cabdisalaam Faarax jacaylka kulay awaana badan way ka sheekeeyeen halabuurno badan way ka sheekeeyeen waana dareen ma garanaysay dadkoo dhan Ilaahay uu abuuray xataa nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam ayuu ku dhacay laakiin sida dadku sheegan inta badan wadnaha iyo ma garanaysay qofku inuu sawaamo ma garanaysay meel jooga iskaran waayo waxaas ay ugu badan tahay waxa dhigi kara qofka meelaha ugu badan ka soo ataagreeyo lafka waxa kamid ah wadnaha saas qabaanuha adigoo magacaaga ku bilaabaya marka uu qofku jacaylka uu ku dhaco halkee ayaa xanuunta qofku markuu jacaylku ku dhaco halkee ayaa xanuunta uu dareem kelmadda jacaylka uu dareemo qofku markuu jacayl helo amaba uu ku dhaco wasla ayadiina halkee baa xanuunta meel ma xanuunta uu dareemo jacaylka marka halku ka dareemaa inuu wax jecel yahay adiga jacayl ma kugu dhacay ugu dhacay haye bal looga sheekay bal dadka ku daawanaya uga sheekay jacayl ugu dhacay waan guursaday bas adigoo magacaaga ku bilaabaya markuu qofku jacaylka uu ku dhaco marka uu qofku jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuunta markuu qofku xanuunsan jacayl ku dhaco halkee baa xanuunta waxa xanuunta qof horta inta miyirka la raado uu iska garan waaya miyirka ha Soomaali garan kullay wax jariir dhex yaacay soo kalena waa noqdaa assalaamu alaykum warahmatullahi marka uu qofku jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuunta waxa ku dhacay bahaliyo u bahaliyooba bahaliyo maxaad ka wadaa marka jacaylku wuxuu kala baxaa dhowr qaybood horta marka qayb qofkii aad jecleed marka aragtay masalanta jecleed oo kale mid maba eegi karto oo ilmeynaysa mid wada aamusaysa mid sidan firkanax baad yeelaysa mid la adiyada aragtay gami maysi marka waa bilwad jacaylku marka aragtidana jacayl kama horeeyo marka labada qof markay sarkaan jacaylku kadis ku wanaagsan labada qof si kadis soo kulmaan ayuu ku wanaagsan aragtida jacayl kama horeeyo adiga kee kugu dhacay aniga waxa ku dhacay mid kadis ah kaabad baa inaan kula balamo waliba hadii la yiraahdo qoorta soo keen kaabad baa inaan kula balamo kaabadii waxaan fariisanayay ilaa sanad iyo badh weynantii uu ka raadinayna meesha soo marto markay ii timaadana waan aamusaa wuxuu habeen dambe inooga dhig ballanteen marka inaan inta la wada kara jacaylkii waan kari waa marka jacaylku halis halkay ku dambeysay inantii ma arkay dambe tahriibto jarmalkay qabato anna waxaas ma ka daba dhoofta marka waxaan ku waay doonay dhaqaale aan ku dhoofo ilaa ma keenay toban jacayl telefoon number hiba marka uu qofku jacaylka uu ku dhaco ama uu helo halkee ayaa xanuunta muxuu dareemaa qofkaas wuxuu dareemaa eedade uu dhaqaajiyaa uuna meel aan muraad u lahayn eedade ayuu ma u dhaqaajiyaa kowdade dabeetana sooba saldhigi maayo dee ilaa uu jacaylka guntiisa gaadho adiga bal jacaylkaagii hore bal ka waran iyo haddii imika qudheeda aad yara celcelinayso jacayl maanuu jacaylkaygii hore waxa la wixii aan faraa ku hayayba waan ilaabayba ma fahamte baacamister baan ahayo wallaahi baacamisterkii waan ka tegey adigoo magacaaga ku bilaabaya marka uu qofku jacayl helo ama uu ku dhaco halkeeba xanuunta marka uu qofku jacayl ku dhaco meel xanuun aad taabato tiraado halkaasaa xanuunaysaa ma jiro waa qof caadi ah laakiin hawo uunbaa hayso oo wuxuunbuu doonayaa uun dabeedna inantaa uu caashaqay masalan dumarkaa ma caashaqay haddii la yidhaahdo imanka qoorta aad tiraahdo waxaan doonayaa inaad qoortaada ii soo goyso markaasaa ku raacayaaye wuxuu odhanayaa iga gooya qoorta ii gooya ayuu odhanaya lacag iyo waxaa iska daa haddii qoorta la yidhaha qoortaba lagu gooyaa oo inantaa ma la siiyaa haaya siiya buu odhanaya jacaylku waa kaa horta wax maaha cayaar iyo dhayaldhayl iyo waxaas imanka jacaylkanay sheegayaan maaha jacaylba waa jacayl waa ayaamo uun waxa weeyaan dhalanteed
weeyaan waan ku jecelahay bas dabadnaqaan laakiin kii hore maaha adigoo magacaaga ku bilaabaya marka uu qofku jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuuntaa magacayga Mustafa Cabdullaahi Saciid waxaan aaminsanahay qofka markuu jacayl ku dhaco yacni meel xanuunayso la oran karo ama la taaban karo la oranayo way xanuunaysaa inaanay jirin ya inkastoo de wadnaha oo kale dadku sheegaan qalbiga oo kale sheegaan qofka wax uu yiraahdo moogtid laakiin ma dareemi karayno jacaylku waa tan iyo cadhib model aanu adigoo magacaaga ku bilaabaya marka uu qofku jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuuntaa horta magacayga bismillaahir rahmaanir rahiim wardo Axmed Naasir laakiinse su'aashaad weydiisay horta qofku jacaylku wax jira laakiinse wax la taaban karo oo inay qofka halkaas xanuunaysa oo de jirta ma jirto laakiinse de qofka aqliyan aan bi wax ka yeerin noqonayaan oo de wax jira oo de wuxuu budoonaya qofkaas wuxuu doonaha ahaad ama wuxuu jeclaaday intaas mooyee de wax kale oo de aan ku tilmaami karaa beerati ma jirto laakiinse meel la taaban karo loona waa la taabanaya halkaas xanuunaysa wax jira ma hadde laakiinse jacaylku wax jira bis adigoo magacaaga ku bilaabaya marka uu qofku jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuuntaa محمد أرتو مع مقعي واحد محمد حسين شري أنا يقول دعي ويقول سود وادي ولي لوي هيا مركو قفكو كل عش عائلك وحيا هوشات هيسو وادي اللوذا ميل كلاد قشاء قارق مركاد وضو محمد داد خير بحدا قارق وضد كل قلب هذا الكيسا بريكات قبريسا ضد كسارة حتى خطر قليه مشاكل كاسو بالكاسو نروح هيا لكن واحد طبعا صار هاي إلى نمك حل كجارو إلى نمك حل كجارو خروج الصعدة بقى هاي هالكيبك وحنون تمرك وقلب قاعد ده هول قليه مرشوع بقليه هاي واحد كورت عين قف يا هوشي وذا قليسان أيه أخوي مرس هذا قاب بس الكروان كنت عليه أيه هوشي قاري مو وضع وضع يستريح كم مرة هذا إلى شو إيش كريه بعد مرس قلبي مرس بتروح هتكب حيس الشغل ده هيس marka khatar baad imanayso khatar badan ma ku hayna dadka adigoo magacaaga ku bilaabaya marka uu qofku jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuuntaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga marka hore soo sharmaaka khadar maxamed cali run ahaantii de kalimadan ama jacaylku waa wax jira horta run ahaantii waa waxna ilaahay qalbiyada bani aadamka ku abuuray waa waxna soo jireena laakiin su'aashada weydiisay waxay tahay dareen la dareemo ama yacni qofka meel xanuunta ama uu il darnaado horta jacaylku midba meel buu ka helaa midba meel buu ka asiiba oo waxa la yiri jacaylku de qofka meel buu kaga dhaca waxa weeyaan de dadkuna way kala duwan yihiin oo ninba meeshu ka haleelo oo waa kala dooqiye badan yahay marka waxa weeyaan aniga su'aashaasi haddii aan ka jawaabo ama aan dareento israado waxa weeyaan qofku marka uu wax jeclaanayo waxay ku xiran tahay horta qofka uu jeclaanayo laga yaabaa mar wuxuu kaga dhacaa xagga dharka oo gabadha dharkeedii waxyaalaha inuu dabagala ay noqoto laga yaabaa mar xagga quruxda inay ka raacdo laga yaabaa mar xagga nasabka mar xagga maalka yacni midba meel bay ka asiibto marka waxa weeyaan su'aashaasi de jacaylku run ahaantii dad kalena ku soo dhacay wax badanna way jirtaa marka taas kaga bixi lahaa qofka meel xanuunta ma jirto miyaa kee xanuunta qof aanu ismalihi qofka meel baa u xanuunta aan ahayn dareen marka qofka jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuunta waxa xanuunta waxa u daran intaas ka galaa iyo qalbiga had markaad silaa seexo yuunbay koo dhimanaysa aan saxay marka nina wuu ku dhadhabaa nina isagoo hogta yuunbuu iyagoo taataabanayso walaala adiga magacaa ku bilaabaya marka uu qofka jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuunta wallaahi magacay waxaa la yidhahdaa Safiya Cabdi Maxamed de waxaan maleynayaa dadka waxa ay xanuunta de wadnuhunba dadka inta badan laga qabtaa wadnuhu de jacaylka wadnuhu uu qabtaa adiga mar way marna jacayl ma kugu dhacay anigu waa yarag baan adigoo magacaa ku bilaabaya marka uu qofka jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuunta walaal horta magacayga ma sheego ma fahamtay laakiin jacaylka hore igu mudcin laakiin saacadda marka halka soo taagay ugu bilaabay aduna ay ka gala marka uu dadka jacaylka ku dhaco halkee ayaa xanuunta
hubbigiisa iyo dareenkiisa qofkunbay ku xidhanta shakhsi ahaantiisa iyo halka xanuunta oo ii sheeg bal qofka markuu jacaylku meesha xanuunta ma garana meesha xanuunta marka uu qofka jacaylku ku dhaco halkee ayaa xanuunta qofka bilaadanka horta jacaylku sidiisaba waa dareen qofka bilaadanka ku abuurma ya dareenkaasna ma aha wax la taaban karo meel ah laakiin dhammaan xubnaha jirkiisa dhammaan qofka shakhsi ahaantiisa ayaa xanuunsada ma aha meel gaar ah xanuunta ma jirto qofka jacaylada ku dhaco marka uu qofka jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuunta jacaylku markuu qofka ku dhaco halkee xanuunta halkaas xanuunta qalbiga marka uu qofka jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuunta wallaahi qalbiga ba xanuuna ma garanaysaa because qofka jeceshahay waa ina heshid haddaa weydid dismoral baa noqonaysaa you become dismoral may fahantay so jacayl wax fiican maaha it's a bad disease marka la ku jecel yahay ma xuma laakiin mar haddii laguma jeceli it's a dismoral waxay noqonaysaa disappointed watahay daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii galabta oo ahaa su-aashiisu haddii uu qofka jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuunta barnaamijku waa barnaamijkii kaftanka Somali News waxaa idin daadihinaysay anigoo Sagal Guura ah sidoo kale waxaa xagga kamarada inoo joogay Yaxya Cabdirashiid tan iyo inta barnaamijkan barnaamij la mid aan ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo